بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مقطع كان جابان 5 دقيقة سعنية waxaan kugu soo gudbinayaa insha Allah 5 arrimood oo sababi karta inaad janno gashid sidoo kale 5 arrimood oo sababi karta inaad gashid naar haddaba fadlan haddii uu maqdaca kan ku soo gaaro yuusan noqon maqdaca kan mid agtaada ku hara ee la wada golaalada khayrka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay addaalu ala alkhayr ka faa'ilihi ruuxa dadka khayrka tusaa wuxuu la mid yahay kan sameeyay oo kale haddaan ku horeyno 5 arrimood oo sababi karta inaad jannada gashid waxa ugu horeeya number 1 ah الخوف من مقام الله عز وجل إن لكلنك على أتكعشتك الله سبحانه وتعالى وحو ليه ولمن خاف مقام ربه جنتان روحي كبقى لكلنك إلهي وحاوصقناتي لبا جنة لبا كفالة الأيتام أقوانت إن ككفالة قادي نبي صلى الله عليه وسلم حكى السبل إنه يري أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أنا يروح أقوانك ككفالة قادة جنة وحان كنا هاي سيدة أوكالي ونبي صلى الله عليه وسلم وحو حريري لودي سفرات فرتا دير يفرتا كلي كو خيغتا ايو حريري بمعنى halka wuxuu ku tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam inay aad isugu dhow yihiin raantii ilmaha kan aabahood qabriga galay Allah subhanahu wa ta'ala ku afsaday wuxuu baahan yahay daryeel iyo naxid fara badan ayuu u baahan yahay qodobka saddexaad waxa weeye taacatul waalidayn labada waalid in adeecid gaar ahaan hooyada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilzam qadamayha fa thamma aljanna adamadeeda laazim halka ay jannada ku jirtay xadiis kale wuxuu ku leeyahay markii nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam an haqqu an-nas bi husni sahabati wuxuu yiri ummuk thumma abuk afar al-iktharu min dhikrillah dhikriga ilaahay inaad badsatid nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sabaqa al-mufriduna waxa dheereeyay dadka mufridiinta ah waxa la yiri rasuulka ilaahay wama al-mufridun mufriduntu waa kuma wuxuu yiri adhaakiruna allaha kathiran wadhaakirat raga inta badan ilaahay xusa ee gabdhaha inta badan ilaahay xusa weey qodobka shanaad waxa weeyaan rak'ataal wudu labada rak'ay weysada nabiga sallallahu alayhi wasallam jannada ayuu galay markaas wuxuu maqlay kaba sanqadhooda markaas waxa lagu yiri waa bilaal nabiga kaleey salaatu wasalaam bilaal ayuu weydiiyay عن أرجى عمل عمله في الإسلام عملك أقول رجال بضن الإسلام كده حديث أقبطي وحويري رسولك إلهي لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله أن أصلي رسولك إلهي ما قرني عمل أنك غير رجال بضن هاي الإسلام كده حديث أقبطي إلا أنا إنا ويسيستموي ما ويسيستو إلا دي أن ويسيستو لا برك عضوت هي كده بيسيها قضبك اللي حد وحوي إفشاء السلام سلامة الله فافي وصلة الأرحام قضبك تودماده waxa weeye الوفاء بالعهود والصدق بالحديث ballanka in la oofiyo qodobka sideedaadna qiraa'atu aayatul kursi weeye qodobka sagaalaad waa mariidka in la booqdo qodobka 10aad ee ugu dambeeya waa nin gabadha inankeeda raali gareysa halka waxaan kaga baxnay 5 shay ee sababi kartay jannada waxaan galinaa 5 shay oo sababi karta naarta inaad gashid kibrika ugu horeey nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri jannada ma galayo ruuxa qalbigiisa uu ku jiro misqaal dharratin min kibri misqaal dharra in la eego kibra jannada ma galayo ninkuu qalbigiisa ku jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad ee sababi kara ruuxa inuu naar galo waxa kamid ah dulmiga iyo gardarrada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laba sinf waa marka wali ma arag أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها قضبك شناد حوي قاتل نفسه كان قدام بيه قضبك شناد حوي قاتل نفسه كان نفسه دي سدلا روح نفسه دي سدلا النبي عليه الصلاة والسلام حول الله يسوي كورنه ربي الله وحو يري أدونكيغا وحو إيغالا دغدغay nafsadiisa فحرمت عليه الجنة جنada ayaan ka xarimay hadaba shanta shay iska ilaali shanta horena ku dadaal walaal fadlan walaaladaadana khayrka la wadaag Allah ku barakeeye barakallahu fiika wajazakallahu khayran